متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xalqada maanta waxaan kaga waramaynaa sifooyinka wanaagsan mid ka mid ah, taasoo ah asturidda. Ahaw asture. Asturaaddu waa inaad asturto ceebaha walaalkaaga muslimka ah. Alla oo ka waramaya kuwa ceebaha dadka raacraaca waxa uu yidhi: ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi ddunyaa waalaakhira wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun. kuwa jecel inay xumaantu ku faafto muslimiinta dhexdooda waxay leeyihiin cadaab kulul adduun iyo aakhiraba. qofka raaca ceebaha dadka waxa uu leeyahay abaalka ah in adduunyada laga jaro xad, aakhirana cadaab. alle waxa uu yidhi: walaa tajasasuu, ha isjaajuusina, micnaha ceebihiinna astura. iska ilaali inaad raacdo ceebaha dadka. alle waxau inooga digaya inaan raacno ceebaha dadka. nebigu waxauu yidhi calayhi salaatu wasalaam: ummaddaydoo dhan waa kuwa la cafinayo, kuwa xumaanta muujista mooye. xumaantoo la muujista waxaa ka mid ah in qofku xumaan sameeyo habeenkii uu waabariista isagoo uu alle asturay, aroortiina uu ka sheekeeyo xumaantii uu xalay sameeyey, asturkii allena uu faydo. halka qofka walaalkiisa muslimka astura oo ceebihiisa sheegin uu alle asturayo adduun iyo aakhiraba. arrinkaa waxaa inoo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxa uu yidhi: qofka ku asturo qof muslina adduunyada dhexdeeda, alle baa ku asturaya isagana adduunyada iyo aakhiradaba. ha raacraacin ceebaha walaalkaaga muslimka ah. abaalka inuu alle ku asturo adduun iyo aakhira baad helaysaa haddaad asturto walaalkaaga muslimka ah. allah inaga dhigo kuwa dadka astura. xalqadeennu maanta halkaa inoo joogto.